asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu walaalayaal soo dhawaada dhammaantiin walaalihii ku xiraa duruusta jasariyaha ee doctor fu-aad sheekh axmed iimaan inoo waday. maanta xalaqadani waxay noqonaysaa xalaqadii 10aad iyo casharkii sabtida. hadduu alla idin waxaa inoo xigi doonaa casharka arbacada oo laga bixi doono. shiikhaan kusoo dhaweynaya inuu darsiga inoo furfuro, kadib waxaan ka bilaabeynaa meeshuu inoo jooga insha allah. soo dhawow sheikhana, falyatafadal mashkuuran wamajuura. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ديار إن شاء الله تعالى درسيني وبلابنا سؤال هذا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. وحكى بلابنا بسم الله الرحمن الرحيم. باب في ذكر بعض التنبيهات. فرققن مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف والهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولد والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطن بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حسحس أحدت الحق وسين مستقيم يسقو. شيخ مشهر وحربا إنه نوشيك بعض التنبيهات ويري وحيابا أو لس حسوسين أيو ربا شيخ هل كان إنه نوشيك سهر أصول شيخني أبوابتا مقعيضو دي وحابي حيا محالي رهدا شراحda kitaabka sharxaysa ayaa bixisa ma ahan maxaa la yiraahdaa sheekha wax asaga uu baabka u dhigay meesha. bacd nusaq waxaa helaysaa bacdu tanbiihaat fi isticmaali lxuruufi, xuruufta in sida loo isticmaalayo. kana wuxuu yiri baabu fi dikri bacdi tanbiihaat buu yiri, waxbaa oo rabaa inuu tanbiihiyo. idan sheekha wuxuu yiri فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف. فرققا يري مستفلا استفالكي صفة استفالكي أو من أحرف الحروف كتبت حروفتي استفالكي. استفالكي وحاكسه هرجيدة ساقرانيسين استعلاء، حروف الاستعلاء مركا يري وكيري حروفتان مستفل كترقيق معناها. هذا وهذا saan hore usoo sheegnay xuruuf mustafil waxaa soo galaya bacd xuruuf isticlaa oo mustafilka soo galaya macnihim. sababta waxay tahay mustafilka sidiisaba waxawaaye waa xuruufta oo toddobada wixii kasoo hara, wixii toddobada xuruuf oo maxaa khusa daqtin qid wax alla wixii kasoo hara ayaa la yiraahdaa mustafil. toddobada 22 kasoo hartay xuruuftaas yaree buu yiri, muusan dhihin xuruuf munfatix. haddii uu dhihi lahay faraqiqan munfatixan min axrufin ma socon lahayn. sababta waxay tahay munfatixii waxaa soo galaya oo ka baxaya maxaa la yirahda mustacli ka baxaya xarfulqoyn iyo khaadi iyo maxaa la yirahda qaafkii. walidalika fiihi farqun bayna mustafil wa munfatix. كل حروف المستفل حروف المستفل ككل جد ويرتهي، لكن حروف المنفتحة كل جد موضيرة أو صدح ذا حروف أو استعلاء كسب حياة قلا محلرة منفتح. ولذلك فرق هو فرق الدقيق إلى أساس أوجاتين. مركي أو كسب حشاقي أحكامتي قواعدي أو لحر التجويد أو عن سوق عظمي oo ka dhalanaysa maxaa la yiraahdaa sifaadkii ayuu meesha hadda muxaraba tanbiihaadkan inuu sheekhu kugu sheego. wuxuu ku leeyahay faraqiqan yaray mustafilan oo min axrufin xuruuf الاستفالكي, laakiin waxaadiran bimacnaa ixdar iska ilaali tafqiima lafdi alalifi, alif in aada weynayso iska ilaali. meeshan sheekha waa lagu haystaayo oo shuraaxda way ka hadleen oo laysa maxaa la yiraahdaa calaa idlaaqi in la idlaaqa maahan تفخيم لفظ الألف، ألف إلا وينيو اسكيل عليه وجرد معنيه ألف كي هدي أو محل يرهذا بعد حرف الاستفال مركي أودعو
ama maxaa la yiraahdaa xarfu mustacli markii uu dhaco way kala duwan tahay. xarfu listifaal markuu dhaco ayaa loola jeedaa. waxaadirana tafkiima lafdi lalifi, iska ilaali alifkii sidaa haddaa ku wadid oo meesha ku yaalla xoogaa yar iltibaas baa dhacaya, xoogaa isdhexinaa qofki uu fahmi waayo. iska ilaali tafkiimi lafdi lalifi oo macnihii idaa waqacat bacda xarfi mustafil, xarfu mustafil haddii uu dhaco waay macnihii. ama haddii uu dhaco bacda xarfi mustaclin waa la tafkiiminaya macnihii, lianna alif yatbacu maa qablahu, wax alla wixii ka horeeyey ayuu raacaa alifka. taana waa muhim jiddan ina aada la socotaan. wahamza alxamdu acuudu ihdinaa, hamazaadkii buu hadda meeshan rabaa in uu ku yiraahdo yaray. faraqiqan yaray macnihii hamzadii alxamdu ku jirtay, oo ha dhihin aadheh, acuudu hamzada ku jirtay, ihdina hamzada ku jirtay, allahu hamzada ku jirtay. intaasuu hamazaadoo dhan yaray buu ku leeyahay markaa alxamdu, acuudu, ihdina, allahu, ha dhihin allahu ihdina, la ma yajuusu. waa markii la bilaabanayo hamsooyinkaas laga bilaabanayo. hamzada sideedaba markaa ka bilaabanaysid muraqaqa waaye. markii ay dhacdo maxaale kelmadda dhexdeeda ay dhacdana waxaa la fiirinayaa hamzadaas meesha ay taalo makaankeedii baa la fiirinayaa. haddii ay xarfu isticlaa mustafil may dhacday mise mustacli, markaas kadib aa la ogaanaya sida in la yareynayo iyo in la weyneynayo. huma intaa kadib laama lilaahi lana fiiri, faraqiqan weli yareyntii buu wadaa weli. laamkii oo lilaahi ku jirtay laamkaas ha weyneynin. lana laamka ku jira ha iyo kaa weynaanin. walyatalataf laam yatalatafna, walyatalataf laamka ku jirayna ha weyneynin buu ku leeyahay. sababta waxay tahay waxaa laamkan oo yatalataf ku jirta kadib dhacaya laam athani waa loola jeedaa. walyatala ta oo xarfu mustacli ah ama mudbaq ah baa ka dambeysa, saa darteed yuusan kaa raacin, ta'dii yuusan kaa raacin buu ula jeedaa. walyatalataf wuxuu la mujaawara uu yahay, ta'daas buu la mujaawara yahay. ama laamka oo hore allaam alula xarfu rikhaabo buu la socdaayo oo ya ah, taas dhib ma laha ayada. walya wal inaad dhahda xoogaa yar way adag tahay. midda labaad adoo iska ilaalinaysid da'dii in maxaa la yihahdaa kaa yaraanin, adoo ka ilaalinaysid laamkan da'da ka horeeya yuusan kaa weynaanin buu ku leeyahay, iska ilaali macnihi. walyatalataf. wacala allahi, wacala allahi sidoo kale laamkan calaa oo ku jira yuusan kaa weynaanin, adigoo ilaalinaysid lafduljalaalaha ka dambeeya. cala allah ha isku dhihin cala allah, adoo isdhehaysid weyneey maxaa la yihahdaa lafduljalaalaha laamkaas calaa ku jirta iyou kaa weynaanin. walad ay bimacnaa walad daaliina limujaawarati, kadalika daadkaas meesha yaallo adigoo isdhehaysid weyneey yousan kaa weynaanin laamka walad daaliina. intaasoo dhan waa maxaa dhihi laamaadkii lilaahi lana walyatalataf wacala allahi walad. ma ahan keliya intaas keliya qur-aanka inay ku timido sheekha wuxuu ula jeedaa waa mithaal waaye, bacdu dikri buu yiri, qaar ka mid ah in la xuso oo inaad iska ilaalisid. walmiima min makhmasatin wa min marad, sidoo kale faraqiqana yaray miimka oo makhmasatin ku jiray. walidaalika miimka hore ha baa ka dambeysa, laakiin midka dhibka badan waa midka labaad oo dhacay beyna xarfeyni mufakhameyni dhacay. laba xaraf oo mufaham buu dhacay oo la tafkiimiyey oo khadii iyo saadkii ah. makhmasatin, makhma isku dhihin, makhmawsatin ha dhihin. wa min marad kadalika miimkan oo kadib dhacay ra'dii iyo daadkii ka dambeeyey oo mufakhamada ahaa isagana maradka yuusan maxaa la yihahdaa kaa weynaanin.
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم وإن كنتم مرضى ما أساس وكلام وحير وباء برق باطن بهم بذي باءات كبو حدنا أقري وحكو يري فرققا مرور بوحي كسو عطفنتها بلاوغي كتابك أو يري باء برق باء كجرتين يريب وكله أو كالصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وباه اسكتين وبر لماذا وحاكد ابن عين حالي هذا حرف الراء والقف قولوا وينين أيوه باطل سيدو كلا باء هذه الباء ألف كدم بين يتبع ما قبلها بالغير هذا أيوه ويري هي سيدا هرؤس والشيخني ألفات كي باطل bihim sidoo kale bidii baa-adkaan oo dhan yuusan kaa weynaanin haka iska ilaali in aada weynaysid lianna bihim iyo bidii waxaa kadib dhacay xarfa rakhaawa oo rakhwa ah baa kadib dhacay sidii rakhaawada hore idinkugu soo sharxay aad garanaysiin muxuu yahay xarfu rakhaawo waxris iska ilaali marka iska ilaali بعض النسخ فحرص واسكت على الشدة iyo والجهر laba sifo baa meeshaan ay qaadatay bacdi laba sifay leedahay sidii markii aan soo sharxaynay sifaadkii aan soo marnay bacda waxay leedahay shidda oo ahay ajid qadin bakat iyo jahrigii hore u soo qaadateen alladii kaasoo fiihaa meeshaan u fiirsa marka أي في الباء باء بقول الجيدا معناه إسك إلى الشدة حرف الشدة إلى هاي صوتك انحباس صوتك إن إلى هاي يوم محل إلى هذا جريانك أو محل إلى هذا هودي وحنا إلا عرنا بعضي فيها أي بعضي ماشي الضمير كاس فيها بعضي أنه قرايا أيوة في الجيمي جيمك لبضادي وحيليهين وحال إلى هذا الجهر هي شدة لماذا loo ilaalin maayo sababta loo ilaalinayo waxay tahay sideedan bacdii aynan fa-i kaaga ekaanin haddii kale bacdii fa bay u ekaanaysaa jiimkiina shiin buu kaaga ekaanayaa jiimkiina shiin buu kaaga ekaanaya macnihii ka xubi sabri ka xubi الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر حولها صورا يحبونهم كحب الله يحبه هذا لا يحبه أو كاير هذا محلي هذا أو ماشي اللي جوايو محلي هذا جهري الشدة اللي جوايو فأبو نقول يا معنيه جيم كي سيدو كله جهري الشدة هذه اللي جوايو شيبو اسكو بدلا يا بركا arrimahaasoo dhan aada iyo aada in loo ilaaliyo weeyo sifooyinkii sidii aan usoo sheegnay iyo sida aan usoo aqrinay haddii uu iskaaga baxo maanta o dhan waa aragtay markaa qur-aanka aqrinaysiin xarafkaas xooji yaray weyney waxa sababta waxay tahay xarafka hadduu sifadiisii laga waayo sifadii haddii la waayo ama la kordhiyo labadaba dhib baa ku imaanaysaa hore usoo sheegnay sifooyinka waa wax cad waayo cadaankii haddii uu dhaafana baras buu noqonaya cadaankii haddii la waayo madow buu noqonaya kaa waayo waxris cala shiddati ilaali shiddada oo leeyahay ma huwa shidda waa soo qaadateen ma huwa aljahra waa soo qaadateen alladii fiiha ay ilbaa uu leeyahay iyo wa fi ljiimi iyo jiimkii haddaadan shiddadii iyo jahrigii aadan ilaalinin waxaanu nidhi ba'diina fa bay kaa noqonaysaa jiimkiina shiin buu kaa noqonayaa macnihin taa waa in aada iyo aad aada iskaga ilaalisaan rabwatin ijtuthat rabwa iyo ijtuthat iyo alxaj alfajr waxyaabahaas iyo wixii lamid ah qur-aankana meelo badan ba kusoo maraysiin wajacalna bna maryama wa ummahu aayatan wa aaweynaahumaa ilaa rabwa رفوة هذه الفأي كان ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت
ولله على الناس حج البيت وقرآن الفجر والفجر وليالي العشر wixii la mid ah waa inaad saa u ilaalisa amhilo waaye ma ahan intaan keliya inay tahay marka wuxuu yidhi wabayinan muqalqilan in sakanaa cadday bayin ay bayin muqalqalan ama muqalqilan cadday buu ku yihi qalqaladii bifatxi lqaaf haddaan dhahno muqalqalan haddaan dhahno oo la farxiyo xarafkii bay u noqonaysaa oo fii sifati lxarf ay u noqonaysaa ama muqalqilan haddii aan nahno xaala kownika tuqalqilu lqalqala oo qofka akrinayay bay noqonaysaa wabayinan cadday muqalqalan xarafkii qalqalada cadday in sakanaa goormaa la qalqalayaa markuu sukuun uu leeyahay qudbu jadin waxaa la caddeeyaa oo keliya mar alle markii ay reeban tahay ama wabayin cadday muqalqilan xaala kownika aada qalqalaynaysid ayuha alqaari alkariim xuruufu lqalqala in sakanaa markay reeban tahay xuruufu lqalqala waa in la caddeeyo markay ay reeban yihiin qalqalaba haddii lagu yiri waxaa fahmaysaa markay reeban tahay laakiin wain yakun hadday ahaato fi lwaqfi mid lagu istaagayo xuruufulqalqala kaana abyanaa caddayntiisii way kasii caddahay macnihii waqfigii lagu istaagayo macnihii kaabaa kasii cad markii lagu istaagayo macnihii qul acuudu birabbi lfalaq haddaan dhahno fiiri falaqo waa lagu istaagay laakiin markii wayaqطacuun ijtabaahu wayadkhuluun laakiin waxaa ka cad khalaaq muxiiط bahiij majiid kaabaa kasii cad haddii wuxuu kala hadli maray wasadka ay gasho wabayinan muqalqilan ama muqalqalan in sakanaa ay xarafka dhexdiisii markay tahay kelimada dhexdeedii markay ay tahay way macnihii wain yakun fi lwaqfi laakiin haddii ay tahay waqaf oo lagu istaagayo sida xuruufta meelo badan kusoo aragnay kaana abyanaa ayadii baa cad waxaa waaye waxaa la rabaa inaad sii caddaysid aada sii xoojaysid macnihii waqfigaas qalqaladaas in ay aada u caddaato macnihii okay waxaa xasxasa wabayin cadday xaa xasxasa xada ku jirtay sababta waxay tahay saadkaas xadaas waxay dhacday saad laba saad dhexdeeda bil xasxasa waa saad baa meesha ku yimid taa darteed xadii yaysan kaa jiidanin maxaa la yiraahdaa weynaantii la weyneynaya maxaa la yiraahdaa saadkii ayadana waana inaad yarayso waana inay caddaato macnihii qaalat imra'atu lcaziizi alana xasxasa xada cadday xasxasa axadtu sidoo kale alxaqu waa inay caddaato xadaas lianna xada aad bay u maxaa la yiraahdaa ay u qarsoontaa meesha xuruuf mustacli ayaana maxaa la yiraahdaa ay la joogtaa ee meeshii ay la timid macnihii marna da bay la timid marna qaaf oo aada loo weyneynayo bay la timid sidaa darteed waa in ay caddaato markaa akrinaysid qaalat imra'atu lcaziizi alana xasxa laakiin haddaa iska dhahdi qaalat imra'atu alcaziizi alana xasxasa alxaq xasxasa ma yamshi xada cadday sidoo kale markay da kadib dhacdo markay qaaf kadib dhacdo iyo wixii lamid ah wakadalika waxaa caddaynaysaa siina mustaqiim ihdina asiraat almustaqiim bacd annaas salaada markay dujinayaan ama qur-aanka akrinayaan siinkaas mustaqiim ma maqlaysid ihdina siraat almustaqiim bay leedahay ihdina siraat almustaqiim ma yamshi almustaqiim siinka inuu cad yahay wakadalika yasطu yakaaduuna yasطuuna wakadalika waxaa lamid ah yasqu walamaa warada maaa madyana
وجد عليه أمة من الناس يسقون من الناس يسقون وإنay waxaas oo dhan cadaato meeshaan oo dhan waa tanbiihaadkaasoo wuxuu ku leeyahay iska ilaali meynan maxaa la yiraahdaa xuruuf kaliyaysan kadib raacin buu ku leeyahay mustaqiim qaafkaas kadib dhacay dartiis buu ku leeyahay yaysan kaa raacin alqaafu wataau oo ah maxaa la yiraahdaa shadiidaat waa aad iyo waxa shada ay leeyihiin walidaalika wuxuu ku leeyahay راجع إلى إعطاء الحروف حقها ومستحقها دائما وحال قرب كل ذلك إن أدعى لسد محل يراهذا إن سيسد حروف والباء واللغة العربية عن صمرني حق هذه مستحق هذه إن لسيو ساوى أيولي هي باب الرآد بان وحي أن قال أسبوع دم إن شاء الله تعالى إلى أن كل من أسبوع كذا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. عندي سؤال قبطه إن شاء الله عد كان أفرينا شيخنا السؤال هو أنت شيخ إنه تشوقه قف كي درسي فهمي أما فهمين ده فهمتين وفهمنا ده أدي السؤال قبطه نسوي دي يا شيخ بارك الله فيكم. أنت أنا نشوفين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أستاذ وحاذنا تفخيم لفظ الألف معنا ماشي عن حمزة ذكري هذه أهم هيد وكد دكتونه وتوصي وأهم هيد لكن هذا واحد يري ألف كوح وقرع حرف كورة يران يوينان أصلا ماشي أفهم لكن همزة مرة البيض ومرققة همزة مرققة سيكون غير مرة البهدي حرف مستعد بعد مرققة ميانه. ماشي أصلا إلى كلا أوان همزة سيدة ضبط الألف والهمزة هذا الحمد وحقول وهمزة صومان بس ألف ما هو همزة سيدة ضبط ألف كسيدي سبب وحاول تجويد كوسوا مرني الألف دائما وأبدا يلزم السكون وحانا ونقضان حروف مدكي واي صومهنا هذا أسوق عضنا هذا كتاب كلي هذا أسوق عضنا هذا قادك يا أخي محل به جرينا نورانية نورانية ده ماشي أسأل إنه كوسو كلا صار لها مركل أقرنا يصير هذا ألف باء تاء ثاء جيم حاء مركل اللي هي ألف كسر وقول شيء عيو استعارة أهان بو ألف ونقضي لكن وهمزة محا ألف ألف سيدي سبا ألف وحا لام ألف كألف وصوم ألف ألف باء تاء جيم حاء هذا سو لام ألف بكل لام ألف كاس ماشي يلو وامحي لام ألف كاس أي ألف أسرى وحوء لغما بلابن كرو محل يراهدا لغة عربية لغما بلابن كرو سكون لغما استاغي كرو محل يراهدا حركة لغما استاغي كرو تقدرت وباب دير waxaan ka gali doonaa haduu Ilaahay yiraahdo kitaabkeeni aan aqrin doono haduu Ilaahay yiraahdo oo aan meesha idin soo dhignay oo kitaabka ugu dambeeyay taqriiban kaabaan ka aqrin doonaa haduu Ilaahay yiraahdo xuruufta aad idinku soo bandhigi doona haduu Ilaahay yiraahdo sidiisaba haddii oo noqdo fatxa iyo kasra iyo damaba haddii uu qaadanayo arrintaas si fiican u fahma ألف هذه اللي راهد أو فتحة كسرة ضمة بهدو قادنا وهمزة أصل كذي وحا مركز لغو بالله بنايو أو سكونت أنو غراي الحمد لله يهي وحا لو كان سدا وحو أهي لام كان ماشو كل جرو لغو بالله منكرو أو محل لام تعريف كأه لام تعريف كيا وحو أباحضي إن حرف لغهر مريو حرف كاس كون نقنايا ومحينا waxa ugu dhow waxa la yiri waa maxal yahay alif kaas in meesha loo geero oo asalkiisi hamzada ahay fatxana lagu bilaawdo sidii kalimatu laam oo kale laamka oo laga dib mariyay asagana alifka laga dib mariyay oo laa loo yiri maxal yiraahdaa alifki arimahan oo dhanna maxal yiraahdaa mar alla marka maxal yiraahdaa kitaabkaas aad ugu sharxi doona alhamza am markii lagu bilaabanayo bilaawga lagu bilaabanayo muraqqaqa waaye ألف أعوذ اهدنا الحمد إيوه لمد لكن مر الله مركي أي جذها قشة
ayay isbedelaysaa oo ah maxaa ka horeeya maxaa ka dambeysa. ma aha haddii ay hamzadii ama wixii ka dambeeyey ay noqoto maxaa la yiraahdaa oo noqdo alifkii wixii ka dambeeyey haddii uu noqdo maxaa la yiraahdaa muraqaq waa la tarqiiqinaya, hadduu mufaham noqdo wixii ka dambeeyena waa la tafqiiminayaa. way fahamtaa umalaynayaa. marka meeshan sheekha waa lagu haystaayo taqriiban waxaa leeyahay waxaadiran tafqiima lafdi alifkan uu yiri alalifu yatbacu maa qablahu baa la yiri idan yatbacu maa qablaha raacda tafqiiman wa tarqiiqan. ma ahan sida sheekha oo u dhigay oo kale oo ah waxaadirana tafqiima lafdi alalifi markaa sharxaysid waxaa leedahay oo ah maxaa la yihahdaa haddii waxaadiran iska ilaali tafqiima lafdi alalifi alif in uu kaa weynaado, laakiin goormee waaye markii uu dhaco ish bacda xarfi mustafil markuu dhaco waaye laysa bacda xarfi mustacli. waa fahamtaa umalaynaya. waa hadli kartaa. halo شكرا أستاذ وقفة بارك الله فيك. أستاذ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أستاذ حروفta waxaad u qaybisay muraqaq iyo tafkhiim. marka 21 waxaad tiri waa muraqaq, 7 waa mukhafaf tafkhiim. تمام. marka raacdu ayadu markan waxay raacaysaa xurufta muraqaqa ay raacaysaa lianna marna waa la weyneeyaa marna waa la yareeyaa. fiiri baabkan ku xiga muxuu yahayna baabu raacad keligiis ayada waxay leedahay xukun gooniya leedahay keligeed ayada sideedaba. macnaha xisaabta markan ma waxay raacaysaa 22 may markaan sideedaba raacda markii mustafil iyo mustacli marka la kala leeyahay ma sifaan qaadanaynaa oo ah maxaa la yihahdaa mustafil maa la leeyahay mase mustacli. mar alla markii la tirinaayo raacda waxaa la yihahdaa xarfu raa keligeed baabay noogu imaanaysaayo oo laakiin sifa ahaan marka loo sheegayo mustafilkay raacsan tahay. laakiin fiiri marka lagu yiraahdo mustacli meeqa xuruuf waayna toddoba sooma imisaa soo hartay 21 soo hartay ra'da way ku jirtaa soo maahano. laakiin marka la sheegayo waxaa leedahay arraa lahaa xukum khaasay leedahay sida hamzada naftirkeedii ay xukun qaasay u yeelanayso. way gartaa umaynaya hamzada nuraaniyadu laa yumad bay dhahaan. ha marka laakiin fiiri laa yumad marka la yiraahdo marka aad sharxaysid alifkaas muxuu yahay ma hamza mase waa alif. ilmaha markaa u sharxaysiin waa ina ogeysiin alif bata alif maahan asalkiisi waa hamza alif maahan. alifka waxaa noqonaya laam alifki iyo alif ah. baabkaasna insha allahu tacaala waxa aan ugu tegi doonaa kitaab baan ugu tegi doonaa oo aada idinkugu sharxi doona alif bata markaad leedihiin hada alif lilisticaara ahaan oo alif u noqday maahane asalkiisi waa hamza waaye. alifkaas laga bilowday laam alifka ayaa alif ah. walidaalika kitaabka oo meesha aan idin soo saarnay oo aan aqrin doona hadduu ilaahay yiraahdo kutubta mid kamid ah maxaa la yirahdaa arrimahaasaan ugu tegi doonaa hadduu ilaah yiraahdo. alraa xukun qaas bay leedahay tafkiiman wa tarqiiqan markii la maray, laakiin mustafil ahaan xuruuf markii sifa ay qaadanayso waa sifatu listifaal bay leedahay. waa ay garata soo mahana. sidoo kale hamzadii maxaa la yihahdaa tarqiiqeedi tafkiimku way kala duwanaanaysaa, laakiin sifa ahaan waxay u tahay mustafil bay u qaadanaysaa oo loo raacinayaa. laakiin waxaa kala duwan hal muraqaq miya mase waa mufaham waa xukun kale kaas hadduu ilaahay yiraahdo. shukran baarak allah fiik. xayaak allah. جزاكم الله خيرا. عد kale haday su-aal qabin halkaasaan ku joojinayna maantay. جزاكم الله خيرا شيخنا. hodan gacan baa ku taagan hadal. macana waxaan jeclaan lahaa hadday dhib kugu ahayn hal mar inaan laqbada noo dul marto aan laqbad ahaan ugu dul qabsano. waa duubta soo maahan yaxyo. haa waa duuban waa walaashay insha allah marka hadday maadaama ay duuban tahay
hadduu ilaah yiraahdo meeshaas ku cashada isbuuca dambe haddii aad fahmi weysaan waxaa la duubay markaa issoo wacna hadduu ilaah yiraahdo aan isla hadalna isbuuca dambe insha allah haya sheekh inoo soo xir insha allah baarak allah fiik insha allah allah idin fududeeyo waxaa loo su-aal aa qabtaanna maxaa la yiraahdaa waa weydiin kartaan ama ustaadka usoo diri kartaan ama meeshaan nagu weydiin kartaan insha allah baarak allah fiik allahna idin fududeeyo biidni tacaala inaa xifdisaan isku daya hadduu ilaah yidhahdo asalaamu calaykum wallah wabarakaatuh wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatuhu walaalayaal intaas inoo ku joogaa darsigeennii maantayto marka walaalaha ama duruusta su-aalka qaba ama nagu cusub baa su-aalna weydiin kara casharkii waa xiran yahay